wallaahi weli waan xasuustaa wiilka dhalinyarada ah ee Marookaanka ah kaasoo aan ka badnayn 26 da'diisa 24 25 kama badno waan ku faraxsanaa waana jeclaa wiilkaas mid ka mid ah booqashooyinkaygii aan ku tagay Mareykanka waxaan ahaa mid ku ooyintiisa saameynna ay ku yeelato sujuudiisa dheer safar kale ayaan ku tagay Mareykanka markaa ayaan weydiiyay wiilkii aaway halkuu aaday waxay dhaheen hebel miya maasha Allah wuxuu noqday bilyaneer oo milyaneer maba aha miya waxay dhaheen bilyaneer ayuu noqday sidee qiso ayay ii sheegeen aana soo koobay waxay dhaheen wuxuu fuulay wiish oo ku yaala xarun ganacsi oo caalami ah wiishkii markii uu fuulay wiishkii waxaa la soo kortay gabar oo Mareykan ah aadna u qurux badan wiilkii gabadhii ma uusan eegin marna ma uusan ishiisa ku eegin uusan fiirin mid ka mid ah dabaqyadii oo wiishka u socday ayaa Ilaahay wuxuu qadaray in ay isku soo haraan wiilka iyo gabadhii nafteeda ayay u cabsatay waxayna ka baqday in wiilka uu ku xadgudbo waxayna eegaysaa wiilka qaabka uu u dhaqmo asagana hal mar ma uusan eegin ma uusan fiirin dhinaceeda marna ma soo eegin markii ay ku dhawaatay inay degto ayay waxay ku tiri miyaadan marna xaggayga soo eegeen miyaanan qurxoonayn isoo fiiri waan qurxoonahay aniga maxaad ii soo fiirin la'dahay markaas wuxuu ku yiri diinteyda waa iiga xarimaysaa arintan waa diinkan ka xarimaya inaad isoo fiiriso anigoo ah gabar qurxoon markaas wuxuu yiri islaamka waxay tiri maxaad ka cabsanaysaa wuxuu yiri waxaan ka baqayaa Allah jalla jalaaluhu waxaan ka baqayaa cadaabkiisa aakhiro wiilkii dhalinyarada ahaa wuxuu ku dagay dabaqii uu rabay inuu ku dago markaas ayay waxay ku tiri sheekadeena ma aanan dhamaysan weli sheeka ayaa noo qabyo ah markaas ayay la soo degtay waxay tiri waa maxay diinkan ii sheeg kaasoo ka xarimay inaad hal mar isoo fiiriso waa maxay diinkan waa maxay weynaantan diintii islaamka ayuu u sheegay asagoonan hal mar fiirin ilaah buu ku dhaaranayaa marna ma uusan fiirin qaabkeedana iyo siday u ekeedna ma yaqaan maxaa ka xalaal miirasho wanaagsan maxaa ka ixsaan iyo samafal badan wuxuu yiri waxay igu tiri gabadha aniga waxaan ahay gabar hanti leh aabahay ayaa dhaxal ahaan wuxuu iga dhintay hanti aad u fara badan waxaan leeyahay shirkado iyo hanti aad u fara badanna waan leeyahay waxaan rabaa inaan kuu soo bandhigo hal arin oo ah inaad i guursato mana aqbalaysaa markaas ayuu wuxuu yiri maya ma aqbalayo oo kuma guursanayo markaas waxay tiri sabab maxaa dhacay markaas wuxuu yiri adiga muslim ma tihid waayo diinteyda ayaana iga xarimayso waxay tiri ii sheeg waxaan dhaho aniga ma aanan arkin qof insaan ah oo aan ku aamino naftayda iyo hantidayda ilaa adiga maahane markaas wuxuu yiri waad islaamaysaa waxay tiri maxaan sameeyaa markaas wuxuu yiri orod bax soo qubayso kadib waxaad imaataa meeshaas goobtaas magaalada Brooklyn ee New York si aad u qirto tawxiidka laa ilaaha illa Allah muhammadur rasuulullah isla waqtigaas ayay baxday way soo qubaysatay way timid si ay u qirto laa ilaaha illa Allah muhammadur rasuulullah isla habeenkaas isla saacadaas ayaa imaamkii masjidka ahaa wuxuu ku meheriyay wiilkan dhalinyarada ah oo taqiga ah gabadhan taa oo waxa ay haysatay oo dhan oo hanti ay ku qortay wiilkan waxayna tiri naftayda ayaan kuugu aaminay anigoon ku aqoon sideen kuugu aamini waayay hantidayda anigoo ku aqaano dhalinyaro wiilkan intuu kaga jiraa awlaadeena maanta wiilkan wuxuu nool yahay zamankan aniga kama sheekeynayo saxaabi jaliila iyo taabici mubaarak ay imaam kama sheekeynayo laakiin waxaan ka sheekeynayaa wiilkan nool zamankan
oo la kulmaya dhibaatada dhalinyarada maanta ay la kulmayaan iyo fidnooyinka iyo macaasida jirta. balse wiilasha ee ka tirsan kooxda loo gargaaraya ee ummadda nebi maxamed xilligooda ayaga zaman iyo makaan kuma xirno, balse aniga waxaan kor ugu qaadayaa himamka wiilasheena iyo carruurteena tusaalooyinkan casriga ah, si aysan ugu malaynin inaan ku dadaalayo oon kula hadlayo waxyaabo aysan abuuristooda aysan awoodin iyo caqliyadooda iyo quluubtooda. walaal nagu dhiirigeli, subscribe, like, share si muuqaalo kale oo ku xiiso geliya aan kugu soo gudbino.